السلام عليكم. daawade ku soo dhawow xalqadii koobaad ee barnaamijka fariimaha quraanka. barnaamijkaas oo maalin kasta oo Ramadaan ah idinka yimaada barta YouTube-ka uu ku leeyahay kanaalka Qumane, boggiisa Facebook iyo sidoo kale ciwaanka Facebook ee Sakariya Cabdullah Haruun. fariinteena maantu waxa weeye aayadda 44aad ee suurada Al-Baqara. Rabbi waxa uu leeyahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وواحد فرسان ددك وناقا وآد هلماميسان نفتينا idinka oo akhrinaya kitaabka miyaydan wax karanayn. dadku waa afar mid kow kharibmi waa qof naftiisu aanay toosnayn oo aan daliilka rabbina raacin, dantiisa adduunna dayacay, se cidna ma dhibo isaga oo dhiban mooye. xumaanta iyo xaalad xumaduna isaga ayaa ay ku kooban tahay. laba kharibi waa qof inta uu xumaaday dadka kale in ay xumaadaanna geed dheer iyo mid gaabanba u koray. saddex khayrle waa qof wanaagsan oo addoonnimada uu alle ka raba gartay, toosan oo tubtahaya, hase ahaatee aan wanaagga, badhaadhaha iyo barwaaqaha uu ku jiro cidna la wadaagin. afar khayriye waa qof wanaagsan dadkana isku daya in ay wanaagsanaadaan. haddaba fariinta ay aayaddan qur'aanka ahi inoo wado ayaa ah in marka aynu rabno in aynu khayriye dadka dantooda ka shaqeeyo noqonno, aynu nafteena ka bilowno oo aynaan ka soo boodin in aynu horta soo noqonno khayrle. astaanta ah inuu qofku wanaagga uu dadka u sheegayo aanu isagu ku sifaysnayn waa aafad daran oo ku dhacda qalbiyada qaar ka mid ah addoommada Ilaahay. mar kasta oo waxa aynu dadka u sheegayno uu yahay wax nolosheenna ka muuqda, waa mar kasta oo waxa aynu bulshada u sheegaynay uu si toos ah ugu gudbo qulubtooda, kadibna uu noloshooda ka soo muuqdo. tusaale, bulshada Soomaaliyeed iyada oo suufiga aan dantiisa mooye daliil diineed u aaba yeelin sheekh u yahay, iyaga oo ninka xilka u haya aanu in uu ku tigtigsado mooye u turayn, ayaa waxa u kacay fac dhalinyaro ah, kuwaas oo bulshada u iftiimiyey hantaata cadiinta looga dhigay waxa uu yahay. kadibna bulshada ayaa muddo yar kadib laga arkay iyaga oo gebi ahaanba isgadiyey, oo dhalinyarada inamada ah masjidka galayaan, habluhuna xijaabanayaan. tiradoodu ma badnayn ragga iyo hablaha bulshada u kacay, se waxa badnaa camalkooda. waa inoo barri iyo fariin kale oo ka mid ah fariimaha qotada dheer ee qur'aanka insha Allah taala. assalaamu calaykum.